boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay jabhadii gaadhiga ka afduubatay Dhuqashay inay khaldameen isla markaana beesha ay ka soo jeedaan ay talaabo wanaagsan qaadeen hawluhuna meel fiican u marayaan. boqor Cismaan ayaa isdul taagay ergo habar jecel ah oo gaadhiga uga garnaqsaday beesha habar Yunis taasi oo ahayd midaan habboonayn waa sida uu hadalka u dhigay boqor Buurmadow. boqor Cismaan ayaa qoraal u baahiyay ku yidhi dhacdada yar ee ka dhacday Dhuqashay sidan ka warhayo meeshii u fiicneyd bay maraysaa. runtii khalad bay ahayd dhalinyaradu ficilka ay ku kaceen, hase yeeshee intaan ogahay beeshii tolka ahayd talo ma seegin, hawshiina si fiican bay wax uga qabteen, waxaana habboonayd arrinta in lagu koobo dhalinyaro khaldantay. waxaase meesha ku jirin ergo culus oo habar jecel ah oo garnaqsi u tagtay riyo xidh iyo hadallo taagtaagan oo la isdhaafsaday. habar jecel dowlad ma aha, mana aha inay ka shaqayso hawshii bileysku qaban lahaa. waxaan ku faanaynay maanta beelaha habar jeclo waxay dhexda u xidheen siday qaranka u badbaadin lahaayeen. cid walibana waxay soo dhoweysay cimaamaddii iyo go'aamadii habar jeclo. boqor Cismaan ayaa sheegay in beesha Garxajis aanay kursiga ku heli karin dhiig iyo qalalaase, balse iyagu oo xaragoonaya kursiga lagu dhisi karo. tolkan ballaadhan ee inamada buurta galay ka dhasheenna waxaan odhan lahaa kaftan ahaan in madeeryaar kursigii idiin xukunay waanaannu idin saaraynaa haddii alla idmo. waxaad ka talisaan kursiga inaannu idin saarno idinkoo xaragoonaya oo sharfan, amase idinkoo faraha dhiig ku leh oo faydan. midna ha sugina muuse inaynu ka kicino kursiga dhaqaalana ka qaadno. wixii adkaada annagana lagu soo ciiraa xaggayaga diyaar baannu idiin nahaye. intaasi kaftan iyo run kama taagna midna. sidaasi waxaa hadalkiisa ku soo afmeeray boqor Cismaan Buurmadow oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee ugu caansan Geeska Afrika.